munaasabad kooban oo lagu daahfurayay xarunta lagu iibiyo agabka waxbarashada noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka qayb galay safiirka Soomaaliya waddankani Kenya Danjire Jibriil Ibrahim Cabdulle mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya ganacsato qaar ka mid ah maamulada iskuulada magaalada Nairobi iyo marsalaf kale oo munaasabada lagu casuumay Cabdikariin Cumar Xasan oo ah milkiilaha xaruntan cusub ayaa tilmaamay inay dabooli doonto baahida loo qabo agabka kala duwan ee waxbarashada waxaan haynaa buugaagtii wax lagu baranayay agabkii waxbarashada dhameystiran iyo kuwii diiniga dukaan aad u weyn ilaaha weyn oo space fiican aad ka helaysaan aadan ma arkin oo wax dhiba ka mudanayna markii aad ka adeeganaysaan marka dhammaantiin waa idinku soo dhaweynayaa gacmo furan iyo qalbi furan waana dukaan qof Soomaali shakhs Soomaali uu leeyahay mararka qaar waxa iska dhacda markii aan meelaha uniformka townka la aado inay dadka uniformka line aad dheer u galaan meel aan backing gaarina aan lahayn meel wax laga cuno lahayn masjid lagu dukadana aan lahayn musqul la galana aan lahayn marka malkan PPS waxa ku diyaarsan dukaankan oo agabku dhameystiran yahay qaar ka mid ah ganacsatadii madasha ka hadlay iyo waliba xildhibaanka golaha deegaanka ee waqooyiga Siliya Axmed Qadar Dabar iyo xildhibaanka degmada Kamukuji xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa la dardaarmay ganacsatada xafladdaanayta oo lagu furayaa Book Life School Uniform sida runta ah buug la'aan wax lama bari karo ilmaha waxa loo baahan yahay buug ilmaha ay wax ku bartaan ninkii wax ilmaha bari lahayn waa macallinkii buugga waa la socdaan waa meel aad u weyn oo buugta uniformka laga helo horana u dhicin meel intaas la eg ganacsi meelad intaas la eg xaafadeena Isli iyo Nairobi waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa walaalkeen Cabdikariim oo intaas oo madax halka isku keenay hadii uu Cabdikariim naga dhalan lahayn maanta intaas oo dad isku imaateen daafurka adeeg cusub dukaan cusub oo buugaagta iyo uniformka caruurta loogu talagalay oo kii ugu horeeyay ee laga fura deegaankan Kamkunji iyo Isli oo uu furtay nin la yiraahdo Cabdikariim Xasan barbaaron u tahniyadeynayno waxaan u rajaynaynaa in ganacsigaasi uu u sii balaadho oo sii fiicnaado ugu dambeyn safiirka Soomaaliya waddankani Kenya Danjire Jibriil Ibrahim Cabdulle oo daahfuray xaruntan ayaa bogaadiyay horumarka ganacsi ee soo taraya sharaf weyn ii ahayd inaan ka soo qayb galo furitaanka ama daafurka xarunta lagu iibiyo buugaagta iyo dharka iskuullada ardayda u qaataan waa xarun aad u weyn oo laga furay xaafadda Isli gaar ahaan moolka weyn ee BBS Mall wuxuu noqonayaa meelaha ugu muhiimsan ee magaalada uga baahneed inay yimaadaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wisdomka iyo aragtida iyo dareenka fog uu yeeshay Cabdikariim iyo koox dadka la shaqeeya inay furaan barnaamij intaan la eg ay ka furaan moolka BBS Mall